بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلانتي وعانو وناكسان داوديال meel kasto codkayaga iyo muuqaalkayagu idinka soo gaarayo ku soo dhawaada warkii Somali Channel oo idinka iman doona xarunta Somali Channel ku leeyahay magaalada Hargeysa. warkana waxa idin la socodsiin doona hadii alla yiraahdo anigoo Xasan Maaldidara. qodobada warka ugu doorka roolana waxa kamid ah madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka qayb galay kulan su'aalo lagu weydiinayay. madaxweynaha Jubbaland waxa uu daahfuray shir lagu heshiisiinayo qaar ka mid ah beelaha deegaanada Jubbaland. magaalada Hargeysana waxa lagu soo bandhigay buug lagaga hadlayo waxqabadkii iyo dhaliilihii wasiirkii hore ee madaxtooyada Somaliland Xirsi Cali Xaaji Xasan. xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa sheegay inaanu xidhmi doonin kalfadhiga toddobaad inta ay hor imanayaan wasiirka amniga iyo taliyaha booliska nabad sugidda Soomaaliya. wararka dhinaca dibadda aanu idinka hayna daawadayaal waxa kamid ah goobjoogayaasha midowga Yurub ayaa dhaleeceeyay qaabka loo maamulay doorashada ka dhacday wadanka Uganda. intaas waxay ahayn daawadayaal qodobada warka ugu doorka roon leh. qodobadaasi iyo kuwa kale faahfaahsanba waxaad ku daawan doontaan warkeenan. mar kale isku soo noqod wanaagsan daawadayaal. madaxweynaha federaalka Soomaaliya ayaa ka qayb galay kulan su'aalo lagu weydiinayay. kulankaasi waxa nooga qayb galay oo warbixintani nooga soo diray magaalada Muqdisho wariyahayaga Maxamed Muuse Maxamed. madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka qayb galay kulan lagu soo bandhigayay barnaamij loogu magac daray dawladnimada furanka oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda maaliyadda. waxaana kulankaasi inta uu socday qaybaha bulshada ee kulanka ka qayb galay ay su'aalo ku weydiinayeen madaxweynaha. hadda waa kuwan qaar ka mid ah dadkii kulanka ka qayb galay oo weydiinaya madaxweynaha su'aalo kala duwan. وعاولت إلا هرت برضه هلا كأنه إن الشعب هي من دولته من الشعب هي دولته شعب كان مع كوضع دولته من الشعب وين شعب مختلط بحاولوا بأبوها رأيه إنه شعب مختلط مع كذب الله ملك وين استغراب إلى عثمان أحمد روبنا هل وظفر المجلس هل وظفر بالله نقفل على وقتها نبكى صوتا مالا مرة تياتر المركز كمال حقنا عالي مكرتي حقنا عالي مكرتي تيلس ومشر دوانا وده مدحويني تاسو صراحة إيه مدحويني أقويني كان ساقووني معلومات وحاجة برشيد كوميونتي كمبيوتر يبقى بسوق على الحياة ناشر إلى كسوكا يبقى كميتر كسوكا ما دام مدحويني تهي أودنا أقول لها إلى كسوكو من الروحية إلى فيه ما إلى كان دبعة كتعض عفور يرجع ما يرجع أما بيوه الرعاية أما دبعة إجازتي أما تكر إجرون حتى هنقول بحر وبين بحر العيسو أجران لك عدالة المعقول. madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka jawaabay su'aalihii dadka kulanka ka qayb galay ay weydiiyeen. nidaam iyo system iyo qaab aan isku aamino aan sameeyno nidaamkaas aan aamino qof yaaran ictimaadin oo aan Xasan Sheekh waa ninkii fiicnaa ama Xasan Sheekh waa ninkii xumaay macno weyn ma sameynayso. Xasan Sheekh shal yimid berin waa tagaa laakiin nidaamka dawladnimada waa waxa u baahan in la aamino shacabka loo dhawaado tara aad iyo aad u fiican waayo waana insha Allah waa la qaadanayaa wadooyinka xiran marna niyadda dadka inta dib abku waa ka hadlay waa run markii ugu horreysay laga hadlana ma aha in dadka la dhibo ma aha muhiimadda iyo ujeedada amni darrada jirta iyo cadawga maxaan ku raadinaa dhibka badanna ee aan la dagaalamayno ka hortaggiisa unbaa meesha lala galay laakiin dib inta loo eego farsamooyin ka fiican oo aan sidaa aan ahayn hala baadi goobo waa tala fiican waaye garsoorka oo walaashay ayadana ay ka hadashay waa arrin dhubtii concern oo dadka Soomaaliyeed oo dhan qabaan wax badan dawladda gacmaha ka xiran tahay garsoorka waxba ka qabo. maxamed muuse maxamed Somali Channel Muqdisho.
magaalada Hargeysana waxaa lagu soo bandhigay buug lagaga hadlayay waxqabadkii iyo dhaliilihii wasiirkii hore ee madaxtooyada Xirsi Cali Xaaji Xasan sida faahfaahinta warkaasi inoogu hayo wariyahayaga Maxamed Faarax Coomaade. munaasabadani oo ahayd mid lagu soo bandhigayay buug laga qoray aragtida laga qabo Xirsi Cali Xaaji Xasan oo ahaa wasiirkii hore ee madaxtooyada Somaliland ayaa waxaa ka soo qayb galay abwaano xildhibaano iyo sidoo kale haldoor tiro badan. ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay Cabdiqani Xaamud Cawaale oo ah qoraaga buuggani waxaanu ka waramay ujeedada buuggani ku kaliftay inuu isku hawlo. buuggan waxaan bilaabay haddaan gashaqeeyo taas waa taariikhda oo kooban waa tan jirin buuggan sababtay u dhalisay haddaan meel ka yiraahdo qoraaga ama qof wasiirka waa mudan wasiir ma aha qofku stage uu maraa sida waxaa loo yaqaano baarayt oo kale hadii jeer waxaa jirta ay ku leeyaan halku noqda process uu maraa marka wasiirka oo kale politician ku waxay maraa process uu maraa in marka wasiir uu ahaa weeyis ma noqon imika waa mudan oo qof la sharxi karo marka soo maray marka wasiir wada xisbi oo kale weeyota عاون سرنا وياه هذا ما راح يفعلها يوم قتل تسوى وعلي هاي نقول فيها ترى قبيلنا يعني أنا واحد رنين ويتصور بالشارع تصور برضو تكيف حق xildhibaan Mubaarak Yuusuf Bidhi oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco ayaa isaguna halkaasi kaga hadlay aragtida uu ka qabo buuggani. waxa ku qoran laakiin kulliba qoraaga looga mahadnaqayaa inuu isku dayo buug runtii aad iyo aad u badan qoray xisi oo loo qoray waxa leenahay hore wixii deeqadeeda amaana ee magaalada warqadda wixii taa waa jeeynaa inaad qaado doonto. sida oo kalena siyaasi Cabdikariin Axmed Mooge oo ahaa wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda qorshaynta ayaa soo dhaweeyay buuggani laga qoray siyaasiga Xirsi Cali Xaaji Xasan. ilaa habeenka laga bilaabo ilaa markii dambe nasiibkaygu wasiiraan golahii uu ka tirsanaa wasiirka madaxtooyada oo ahaa kala mid noqdo wuxuu ixtiraami jiray walaalnimo iyo saaxiibtinimo naga dhaxaysay. inta buugga ku qoray runtii waa intan ka aaminsanahay waana intan ka arkay aniguna dee munaafiq ma yahay dadkiis bedelay ma beeyiba sideedaba laakiin mid iyo laba haddaan u hayo dhinaca kala dhaqankayga ah inaanan halkan oo kale ku qorin marka maan jeclaysan markaan page-ka qoray inaan labada ama saddex arrimood kale aan halkan raaciyo laakiin mid ka mid ah walaalkii uu og yahay oo mar dambe uu golaha ka tagay baan u sheegay. waxaa sidoo kale munaasabadani ka hadlay abwaan Xasan Dhuxul Laab Saalax oo ah gudoomiyaha xidigaha geeska. qabyaaladii way saameysay anuu qabyaaladda horta caawa ka hadli maayo daqiiqadaha baa la iibko laakiin waxaan leeyahay intay qolo u qaybsan yihiin qabiilkii intay qadarino hayaan intay qoon hore nabarqodayaan intay qalfajaan u sii qaxayaan intay qasbayaan hidaha qoom kale miyay quruxii iyo shanquudo qoomkii isnaamiyay qabiil miyay qoosi iyo qabiil ka baxanay qodomaan. ugu dambeyntiina waxaa munaasabadani soo gabagabeeyay siyaasi Xirsi Cali Xaaji Xasan oo ahaa wasiirkii hore ee wasaaradda madaxtooyada Somaliland. ninka runta u sheega ay runtii dantu u jirta ee ninka uu nacamleeyo uma jirto marka aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay ee Cabdiqani iyo inta kale runtii haldoorka ah ee bulshaduba wixii ay u arkaan inay soo tabiyaan aad baan ugu qanacsanahay uguna faraxsanahay waxaan leeyahay buuggana insha Allah taala dee waan ku leeyahay kullayba boqolka lagu daafuray boqolkeeda wax doona ha qoray waan qaadanay insha Allah taala. Maxamed Faarax Coomaade, Somali Channel, Hargeysa. xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliyana waxay sheegeen inaanu xidhmi doonin kalfadhiga toddobaad ilaa inta ay ka hor imanayaan wasiirka amniga iyo taliyaha booliska nabad sugidda sida faahfaahinta warkaasi uu magaalada Muqdisho nooga soo diray Axmed Yuusuf Suleymaan. kulanka xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa la filayay inay ka soo qayb galaan wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya taliyayaasha ciidamada nabad sugidda iyo booliska hase ahaatee markii kulanka furmay ayaa waxaa loo qaybiyay ajenda ka duwan kii ay sugayeen xildhibaanada kulanka fadhiyay ayaa dood ka keenay waa kuwan qaar ka mid ah waxa weeye baarlamaanku wuxuu wakiil ka yahay shacabka Soomaaliyeed
وإنه شعب كبغوي برلمان كان وإن حكومات يملكتوية إمام كدود ويكبغ لكن لو تطهرت إلى العبار وعيارنا بدونك ما أنت واحد معود الجوجة واحد يدسوا الجديدنا إلى الناس غير علينا مودي برلمان كيشرف برلمان ما أنت واحد ضمينا بيني يلوم واحد ما يطلع طالع يتكلم بينه وحال لديها لبعتك عمانك أنا شغل لبعتك كنت جوفت شيء على صفر برلمانك أو كوي لبعتك أحد الدين لو لو بدو الخير عشان ما تيجي كده ما مسافر لك ما برلمانك أنا تيجي أفتوبة ترى أنا محل مغلى مش البرلمان كده الدنيا ولا تحت وفريو مش كده بين عدي تعلمي عندك أجندها أو بلها فرياليس الكيرة waxaa ugu horeeya wasiirkii taliyaasha labo baarlamaanka xiriir habashay gabagabadii kulanka waxaa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Mahad Cabdulla Caawad oo sheegay in wasiirka amniga warqad uu soo qoray ay soo gaartay gordhow inuu wasiirku uu codsi soo gudbistay oo codsanayo in waqti loo soo qabto 25 Febraayo wixii ka dambeeyay وقت اللي يفسح على الآلية. مركا صار أول إلا ينتهى عن أربعة سكسوا وافجنا وحوي أربع مهسنتين شركوا ونوحرية هاي. أحمد يوسف سليمان Somali Channel مقدشو. maamulka gobolka Togdheer ayaa u kala wareejiyay gaadiid ay kala dhaceen dad ka soo kala jeeda Puntland iyo Somaliland sida uu faahfaahinta warkaasi nooga soo diray magaalada Burco wariyahayaga Jaamac Saleebaan Cumar gudoomiyaha gobolka Togdheer oo ay weheliyaan gudida nabadgelyada gobolka Togdheer ayaa maanta si rasmi ugu kala wareejiyay laba gaari iyo lacag laba beelood oo ka soo kala jeeda Puntland iyo Somaliland labadan gaari ayaa la kala haystay muddooyin fara badan waxayna ku kala maqnaayeen dhac iyo hab sharci darro oo loo kala kaxaystay gaadiidkani gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Ibrahim Aadan Qabo ayaa ka warbixiyay sidii ugu guuleystay xalinta hawshani arrintaasi mudday soo socotay waxaanu ka baqnay inay nabadgelyo darro ku keento labada dal iyo isu socodkoodii dadka ay baanisarka gobol ahaan iyo guddi nabadgelyo ahaanba rool fiican baanu ka qaadanay inaan labada gaarina ka Puntland yaalla iyo ka Somaliland inaan isweydaarino wixii ku xidhan ee dhibtaas u dhacday oo ahaa adduunna inaanu xalino alxamdulillah ilaahay waa nagu guuleeyay maamulka Puntland waliba gaalkacyo pressure ka wada xidhiidhnay odayaasha dhinaca kale uu ka soo jeeday ninka gaariga ku hayay gaalkacyo iyaguna mahad baan noqonaa farxaan iyo si wanaagsan bay noola shaqeeyeen dhinacan kale ee baabuurka laga hayayna baabuurka kala haystayna aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa si wanaagsan bay noola shaqeeyeen waxaan iyagana halkan uga mahadnaqaynaa gudida nabadgelyada gobolka iyaguna hareerahayga taagnaa inkastoo intii badnayd hawsha inta badan aniga culeyskeedu ugu dhacay oo aan in badan rogay haddana aakhirkii way la gabagabeeyeen si wanaagsan ugu dhamaatay alxamdulilah rabbil caalamiin si wanaagsan oo qurux badan bay u dhamaatay halkan waxaa la isku lahaa adduunka la isku lahaa wuxuu ahaa lacagtu waxay 19,940 10,000 go'aankayagii horey u qabeen 9,940kiina waa cash waxaanu siinaynaa dhinaca ka soo jeeda Puntland oo lacagta gaariga u hayay odayaashoodan ku wareejinayaa odayga ay walaalayeen mulkiilayaasha ay gaadiidkaasi ka kala maqnaayeen ayaa iyaguna u mahadnaqay cid kasta oo ka qayb qaadatay soo celinta gaadiidkoodani waan ku heshiinaa halkan ilaahayna mahadinaynaa waxaan bilaadanaa mahadinaynaa guddiga gobolka iyo gudoomiyaha oo si wanaagsan oo sharaf leh hawsha u dhameeyay way mahadsan yihiin annaguna walaalo heshiiyey oo dhibaatadii halkaa ka jirtay dhameeyay baanu nahay kana walaaloobay kana xaladhalay ah gabagabadii gudoomiyaha gobolka Togdheer waxa halkaasi ku gudoonsiiyay furayaashii mulkiilayaashii gaadiidkani kala lahaa iyo lacag ay isku lahaayeen Jaamac Saleebaan Cumar Somali Channel magaalada Burco
xogayaha dowladda hoose ee degmada Laascaanood ayaa Somali Channel uga xog waramay wiil yar oo la isku haysto oo dacwadiisu ay ka socoto maxkamadda gobolka Sool. Cabdikariin Olol ayaa warkaasi nooga soo diray magaalada Laascaanood. xogayaha dowladda hoose ee degmada Laascaanood ayaa ka warbixiyay wiil yar oo la isku haysto oo wiilkaas oo gacanta uu ku haya haatan xogayaha ayaa saaka xilli aanu xafiiskiisa ku booqanay wuxuu naga warramay xaaladda wiilkaas yar iyadoo dhawaanahani si weyn looga hadalhayay gudaha magaalada Laascaanood inankaas yar xaalkiisa. arrinkan wiilkan ayaa haatan waxaa gacanta ku haysa maxkamadda degmada Laascaanood iyadoo maalinta berritana maxkamadda ay hortagi doonaan dadka sheeganaya inay dhaleen wiilkaas yar. xaaladda farxaan yar ama xidig qof soo yaqaano waxa la yiraahdaa magaciisa farxaan wuxuuna ku naanaysan xidig وأدرت دوّني كنت على جاك فدي مات وأنا كأدرت فدي صاحب أنا فريند اسمه مرك خراء لو إنه صاحب أنا هدت كويس ودونا مرك خراء صح صوته وحنا كلام قلنا يكلي حلو جهود أنا نهدو أفر لا تك ساعة أنت كلا حافظ دويلة شوجا جواب تشغل دويلة شوجا مساعد كويلة جلا هذا حلو هدو ما كلام قلنا كليه نكان وفق عندي أنا كسوري جي خوابي الطوانك بيشي استقالات لو ده كوني شني الطوانك قرص محنوع أو برقة أيوة لاس أنا نكريمي قارك صار راعي حاجة أيه مال جولات كبلان قروي كده إنه حاجة عن تقول لي سلقة كافرات ودنا. xogayaha dowladda hoose ee degmada Laascaanood ayaa sidoo kale ka hadlay qaabka ilmaha yar uu gacantiisa ku soo galay isagoona ka xog waramaya ayaa wuxuu yiri sida tan. kadibna baaraha saldhiga ayaa aniga ila soo xidhay wuxuu yiri waxaan haynaa in yar abada maadaama dowladda hoose ee shaqadeedu ay tahay had iyo jeer dadka xataa ambada iyadoo ay mas'uul ka tahay daryeelkooda iyo ilaalintooda iyo nafaqeyntooda. kadibna farxaan isla maalintii waxaanu keenay jaamacadda maxkamadda degmada oo iyadoo shaqadeedu tahay waan la horgeeyay kadibna waa la wareysay baa laga qaaday lambar uu hayay oo qof nin la yiraahdo Cabdiqani uu garanayo dushu ka hayay kiina waan la hadlay isna xogaanu ka helnay maxkamaddu markaa sida ayay mas'uuliyadii igu wareejisay sida sharcigu qabo inaan gacanta ku hayo ilaalintiisa iyo nafaqeyntiisa iyo daryeelkiisaba inta la helayo farxaan cidii mas'uul ka ahayd ama cidii uu ka soo jeeday farxaan wuxuu ka sheegay maxkamadda horteeda inaanu garanay aabihii hooyadii dadka aanu ka dhex garanayn una garaasday isagoo dad kale la nool sida ayaan anigu ku hayay farxaan haddeerna saasan ku hayaa maxkamadda nasaasi ku ogtahay shacabka degmada Laascaanoodna wixii ognayn waxaan ogeynaa saasan ogeysiinayaa. sidoo kale xogayaha dowladda hoose ee degmada Laascaanood Cabdi Khayr Dirar ayaa sheegay in wiilkaasi markuu muddo 4 bilood uu gacanta ku hayay ay yimaadeen dad sheeganaya in ay iyagu dhaleen arrinkaasina ay keentay in maxkamadda aanu gudbino sida xaaladda wiilkaasi ay dhinac ugu dhici lahayd. farxaan xaaladiisu markii halka mareysay muddo markuu ila joogay 4 bilood waxaa soo baxay dad sheeganaya farxaan in iyagu dhaleen oo inankoodii ha kulmay dadkaas oo isugu jira 3 ilaa hadda dadkan hayna waa 3 reer oo kamid ah deegaanka Laascaanood dadka dega oo mid walba uu leeyahay mataqaana waa inankaygii anaana dhalay waqti noocaas oo iga lumay kadibna si processku sharciga ahaa waxaan u dirnay maxkamaddii in qof walba maxkamadda geysto calaa mataqaana cadeymihiisa iyo xilliguu ka lumay iyo wuxuu ku cadeysanayo saasay maxkamaddu kiiska ku haysaa waxaan rajeynayaa insha Allah taala maalinta berito axad ah in maxkamaddu ay kiiska bilowgiisa furto waxaan gacanta ku haysaa maxkamadda degmada Garsoore Xasan marka kulleeyde anaga laftayga mas'uuliyad baa naga saaran mas'uuliyadda naga saaran marka hore waa wiil yar oo Soomaaliyeed marka labaadna waa wiil yar oo Muslim ah marka labaadna mas'uuliyaddu baa naga saaran dad mas'uuliyiin degmada mas'uuliyiinteeda baan ka mid nahay saasaan ku haynaa wax dhibaato aan ku qabnaana haba yaraatee ma jirto. xogayaha dowladda hoose ee degmada Laascaanood ayaa sheegay inay dhibaato ku qabaan dad markasta ugu yimaada xafiiska iyo goobaha wiilkan yari uu kula sugan yahay wuxuuna sheegay inuu doonayo in wiilka yari si xurriyada u noolaado ayna had iyo jeer uusan dareemin wax dhibaato balse dad fara badan ayaa diiqad ku haya aniga iyo isaga ayuu yiri oo markasta doonaya in ay su'aalo ilmaha yar weydiiyaan taasina aysan ahayn mid bannaan. sidoo kale ma jiraan waxyaabo dad aad ka caawinaysaan oo had iyo jeer idin imanaya oo farxaan doonaya xaaladiisa inay si gaar ah wax uga ogaadaan arrintu way jiraan waxa wada jira anaga laftayga
anaga dee isagu dhibaato naguma hayo oo wiil yaroo dee waxa weeye dee aanu mataqaanaa hayno aan mas-uul ka nahay annaga lafteeda dee mas-uuliyad baa na saaran mas-uuliyaddaa na saaran waxaan u qaadanay ilaahay hortii waan ku qaadanay waxaana ku qaadanay inaanu sida ay tahay u fulino waxaanu ka cabanaa dhibaatooyin nagu haya isaga iyo anigaba dad haddii jeer iska soconaya oo raba inay iska eegaan iska daawadaan yidhahdaan waa yarkii mataqaanaa la hayay xogayuu hayay isaga laftiisa diiqad iyo dhibaato ku haya anaga lafteygana dee diiqad iyo dhibaato nagu dadkan waxaan ka codsananaa cid kasta oo miidiyaha ka daawata oo ninka mataqaanaa xogtiisa haysa waxaan ka codsanaa inay nala soo hadlaan telefoonkuna wuxuu ku qoran yahay mataqaanaa shaashaddaa ka arki doontaan cid kasta oo Soomaaliyeed ama guriga ha ku noolaato ama gaalka ayaa ku noolaato ama Puntland waxaan ka codsanaa farxaan hadday arkaan wixii xogaysa ay jirto inay shaashada telefoonka ku qoran ay naga soo caawiyaan dadka sheegay waxaan ka codsanaa dee kiiska maxkamadda ku jira waxaan la midday berito axad in la bilaabo dee inay ku kalsoonaadaan maxkamadda waxa ka soo baxa inay ku kalsoonaadaan waxa mataqaanaa sharcigu yahay annaga iyo isagana ay naga daayeen diiqada iyo inay markasta mataqaanaa dee ay ama xafiiska noogu yimaadaan ama ay mataqaanaa aanu xilliyada qaarkood waxaa jirta xataa xilliyo aanu mataqaanaa dee dadku ay ku diiqadeen ama shaqo hayso ay mashquulinayaan isagana ay dhibayaan si naxariistaan kuwaan uga codsanaa cid kasta oo ummadda Soomaaliyeed oo xog haysana iyagana waxaan mar labaad saddexaad u ka codsanaa inay xiriir nala soo sameeyaan cabdikariin nolol Soomaaliya Channel magaalada Laascanood shaqaale hore uga tirsanaan jiray hay'adda cunnada adduunka ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano WFP ayaa cabasho xoogan ka muujiyay xaq iyo xuquuq ay sheegeen inuu kaga maqan yahay hay'addaasi sida faahfaahinta warkaasi uu nooga soo diray magaalada Berbera Maxamed Cabdilaahi soo fadhiiste qaar hore uga tirsanaa shaqaalaha hay'adda cuntada adduunka ee WFP ee magaalada Berbera oo bilihii u dambeeyay dacwad kula jiray hay'addaasi isla markaana raadinayay sida ay sheegeen xaq iyo xuquuq kaga maqan hay'addaasi ayaa cabasho xoogan ka muujiyay garsoorka Soomaaliland iyagoona sheegay in garsoorka Soomaaliland si cadaalad ah u wadi waayay dacwadoodii isla markaana indhaha ka qarsaday iyagoona baaq u diray xukuumadda sare ee Soomaaliland iyo garsoorka Soomaaliland iyagoona ugu baaqay in wax laga qabto dacwadoodaasi isla markaana lala doono xaq iyo xuquuqdooda ka maqan iyagoo arrimahaasi ka hadlayna waxay waxaan ka bilaabayaa gobolka saaxil inaanu ka bilowno dacwad WFP ka dhinaca oo ilaa iyo Barasaab ilaa iyo gobol ilaa iyo booliis saldhig dhexe intiiba ay nooga soo dhamaatay oo arrinkayagii ku soo afgaay gudoomiyaha maxkamadda sare oo yiri qorsheynta u gudbi qorsheyntaana aniga ay UNDP aan haru ugu shaqayn jiray oo nasqada soo bartay timekii udub oo ugu tagay ninka la yiraahdo Cali Sanyare taana aan gudoomiyaha maxkamadda ku yiri aan halkan gaari ka raacay oo la igu yiri gudoomiyaha maxkamadda ay qorsheyntaan u gudbinayna markan soo noqday ayaan dabadeedna la igu yiri gudoomiyaha maxkamadda saayiro waxaan yiri wana miyuu soo diruun casrun moodaana nadartu waxaan soo arkaa nacam idhaahda arrinkaas soo hubsoo dabadeedna markan soo hubsaday wuxuu igu yiri sida aan Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo loogaga yeeri karin maxkamadda ayaan WFP na loogaga yeeri karin Soomaaliland waxaanu leenahay arrinkaasi adduun laguma nastay iimaan baa lagu nastaa waxa dekada ka soo dega kutaafada waxa la cunaana suuliga adduunyadu ilaahay agtiisa ayaa kama aha laakiin kelmadda waxaan sheegayaa kelmaddan idin sheegaya waxa weeye haddii aan arrinkaa degdeg loo soo qaadin waa taasoo aniga gaaladu waxba iga haysan mayso ninkii naga dhintay ee ku dhintay shaqadana xaqiisii 25 markii hore reerka inagu kacayaa la yidho waa loo tiri waa mar saddexaadkii aanu ka hadalno mar afraadka waxaanu ku soo afjaraynaa maadaama aanu sharcigii la sheegaya asqada haya dimuqraadiyadda soo maray inuu soo afjarmay oo aanu annaguna operation annagoon alla mooye bilaadan ka baqayn si degdeg ah u galayno Soomaaliland marka operationka la galay macal booliiskeedu shaqeeya laakiin marka la leeyahay iga soo qabta ma shaqeeyo madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa inuu warka daawado marar badan buu soo dhacaya oo mar uu daawado dhageysto waxaan u sheegayaa gudoomiyaha maxkamadda sare markii madaxweynaha qaranka uu ku idmaday xilka waxa tilin wala Soomaaliland tariba cadaalad u helaya miyaha joogo ama magaalaha jooga marka waxaan nidhi dayax 15 ayaa u soo baxay cadaaladii Soomaaliland laakiin gudoomiye waad noqon weyday waxaad noqotay habeen madow baad noqotay waxaana ilaahay ku weydiinaya xilka uu ku idmaday sidaad ummadda xilka aad u hayso aad ugu cadaalad qaadi lahaa ayaa ilaahay ku weydiinaya laakiin guulad ku weydiin maayo gudoomiye taasaan ku sheegay gudoomiye waxaan cadaalad ahayn ayaad nagula dhaqantay waxaad ka soo saara kiiskii maxkamadda wasaaradda qorsheynta qaranka geeya annagu
dhisi mayno iskuul oo kontaraad ka soo qaadan mayno ama laami ka soo qaadan mayno wasaaradda qorsheynta qaranka waxay qabatay waa loogiyo naga maqan xaqayagii ayaa naga maqan oo $20,000 ayaa naga maqan iyo inshurankii oo $30,000 taa ayaanu doonaynaa guddiga naga maqan yahay WFP hay'adda WFP naga maqan yahay bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cusmaan Cabdullaahi Ismaaciil waxaana ka tirsanaa shaqaalii WFP taasoo muddo dheer uu naga socday gudaheeda dacwad aan ku wada jiray WFP oo ku leenahay calaanin $20,000 iyo $30,000 oo caymiskiya taasoo ilaa imika aanu ka laanahay waxaanu gaadhay ilaa maxkamadda sare iyo dacwadeeda socotay taasoo gudoomiyaha maxkamadda sare uu yiri yaan waxba laga qabanin dadka ka dacwadoonaya WFP oo kuna dhawaaqay inaan sida maxkamadda aan looga yeeri karin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaan looga yeeri karin buu ku leeyahay hay'adda WFP taasna waxaan noo cadaysanaa cadaalad darro ay ka jirto gobolka iyo Somalilandba waxaanu halkan sheegnay in naga musuqmaasuqayaan madaxda ugu sarreysa WFP ha noqoto kuwa degan Kenya jooga ee ugu sarreysa ninka magaciisa la Lauren Kabura iyo executive director WFP oo magaceeda la yiraahdo Eric Tikosan iyo Allah misal calaamad ninka la yiraahdo Achila oo qaabilsan HR-ka oo maantana haysta maamulka uu yahay Somaliland loo soo magacaabay area office-ka unaga hortaagay xaqayagii ilaa 7 hore ee ka tagay shaqadan sanadkii 2 sano ka hor uu lacagtoodii soo siiyay annagana la leeyahay qaata 1500 taasoo maantana koonada ay ku soo shubanaygo xaaraana guddana ay noo direen qaarkoodna ay noo si sharci darraa inta yiraahdeen wuxuu nagu sameeyay faldambiyadii wixii la mid ah inoo wanjaleen anigoo kale la diray jeelka ayaa walaalaan ka xaqayga la hortaagay waxaan u sheegayaa annagoo ah shaqaalaha WFP qaybta berbera waxaan u sheegayaa gudoomiyaha maxkamadda sare oo dacwadda berbera taala gudoomiyaha gobolka saaxil oo hayo hortaagan oo yiri lama soo fariisin karo WFP dacwadda aad u qabtaanna wax alaale wax ka jira ma jiraan marka gobolkii meel walba aan marnay heeraha ammaanka oo dhammaan wada tagnay madaxweynaha Soomaaliland waxaan ka codsanaynaa inuu arrinteeda fargelin ku soo sameeyo maxamed cabdilaahi soo fadhiista Somali Channel magaalada berbera salaadiin cuqaal iyo waxgarad ka soo jeeda waqooyiga iyo galbeedka magaalada Hargeysa ayaa cambaareeyay weerar hubeysan oo lagu qaaday goob ka mid ah goobaha diiwaangelinta codbixiyayaashu ka socoto iyadoo dhinaca kalena uu arrinkaasi gaashaanka ku dhuftay mid ka mid ah cuqaasha waqooyiga magaalada Hargeysa sida uu faahfaahinta warkani inoogu diyaariyay mar kale maxamed faarax coomaade salaadiin cuqaal iyo waxgarad kala duwan oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa ay cambaareeyeen fal dhawaan ka dhacay waqooyiga magaalada Hargeysa halkaasi oo dablay hubeysan ay weerar ku qaaday xarun ay ka socotay diiwaangelinta codbixiyayaasha waxaana ay salaadiintani sheegeen in kooxdaasi ay ahayd koox iyagu si iskooda ay soo abaabulay hase ahaatee aanay cidi ka dambaynin cuqaasha salaadiinta iyo waxgaradkii kala gedisanaa ee halkaasi ka hadlay waxaa hadalladoodii ka mid ahaa waxaan leeyahay dadka maanta halkaa falqaladada ka sameeyey ee dhibaatada keenay horta sacad muse kulama socdo iyagaa ka mas-uula wixii halkaa ka dhacay talabaad ma rabno dadkan ilaa xaawiya aadan waanu wada degaynay walaalaanu ahayn waxba namay dhex marin wanaag mooyaane marka in maanta colaadna la dhex dhigo raalli kama nihin anigu waxaan leeyahay nin kasta oo reer Soomaaliland halka uu maanta dego cidina u diidi mayso waxa weeye dadkan xeebta deganina anigu ilaa maalintan dhashay waxaan ka soo jeedaa dadka xeebta degan waxaan leeyahay waxaynu kala leenay ma jirto electionka maanta cidda u cumaamadayna waa cidda rabshada geysatay la sheegayo geesta kalena chief caaqil Ismaaciil Xaaji Wareer oo isna geestiisa warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu gaashaanka ku dhuftay salaadiinta iyo cuqaasha hadalkaasi ka soo yeedhay ee ay ku cambaareynayeen falkaasi ka dhacay waqooyiga magaalada Hargeysa ee lagu weeraray goobta diiwaangelinta anigoo ah caaqil Ismaaciil Xaaji lagu naanayay Ismaaciil Xaaji Wareer cuqaasha Hargeysa kamid ah waxa aan ka hadlaya oo aan ka jawaabaya laba suldaan iyo dhowr oday oo ka hadlayay dhacdada waqooyiga ka dhacday kuna dhaleecaynayay salaadiin iyo cuqaal iyo odayaal loo xidhay falka waqooyiga ka dhacay nimankan oda salaad ma jeclayn inaan ayaga umay oolba qadiyadani salaadiintan
falka iyo haddii bidka arrinka meesha ka jira waan dhaleecaynayna iyaga qadiyadu taalame horta kuwii la xoreynayay bay iyaga ahaayeen kuwa la xoreynayay dhulkan la xoreynayo ee ay nagu haystaan labada reer u shiray dhulka iyagu waa kuwii la xoreynayay baa kuwan hadlaya laakiin calooshiyu shaqaysta cidna ma aha haddii ninka uu calooshiyu u shaqaysta noqdo cidna ma aha waa la yaqaan horta layligu biyaha uurkiisa layligu biyaha uurkiisa ku jiro ka didaabaa layidhi labadan suldaan way ogyihiin Sacad Muuse iyo Habar Awal iyo Isaaqba way ka wada dheragsan yihiin inay dekada Berbera kuna ka qaataan lagana guneeyo dhulkan aan u hadlayna annagu aqligooda may hadale calooshooda ay hadleen waxaan ay ka hadleen ma aha aqligooda hadday ma aha calooshooda ay hadleen aqligooda may hadal waa calooshooda waxay ka hadleen waa dad calooli u talinayso caloosha talinaysa ma aha aqligoodii waxaanu leenahay nin baa ninka gabayga soo mariyeeyo seegtay marinkii uu ka maroorsamay sidii geed maraara leh rag macnaha gabaygu leeyahay rag baa maamulo qoray adna macaanka soo toosay ma labaata waxaana hadaladiisii kamid ahaa maxamed farax Omaade Somali Channel Hargeysa maamulka Galmudug ayaa sheegay in abaara baahsani ay ka jiraan deegaanada Galmudug iyagoo baaqna u diray beesha caalamka sida faahfaahinta warkaasi inoogu soo diray Bishaar Cabdilaahi Maxamed deegaano badan oo hoos yimaada deegaanada dawlad goboleedka Galmudug ayaa waxa mudooyinkan dambe laga soo sheegayaa abaaro xoogan kuwaasi oo saameyn ku yeeshay dhammaan dadka iyo dunyada ku dhaqan deegaanadaasi wasiirka wasaaradda arrimaha diinta iyo waqaafta dawlad goboleedka Galmudug Sheekh Mursal oo xafiiskiisa kula hadlay warfidiyaanada ayaa ka warbixiyay abaaraha ka jira in badan oo kamid ah deegaanada dawlad goboleedka Galmudug asagoona sheegay in aan lagu fiirsan doonin dhibaatada haysata dadkaas walaalaha ah ee ku sugan deegaanadaasi balse ay tahay in la caawiyo isla markaana la soo gaaro gargaar bini'aadanimo kaas oo ku saabsan abaaro ama ka jira ama khatartooda ku soo fool leedahay dhulka Galmudug abaarahaas oo dhawaan madaxweynuhu mar ka hadlay haatan aan mar labaad mar saddexaad aan ka hadlayna abaarahaas waxay ka jiraan dhulka Galmudug inteeda badan ama bariga gobolka Galguduud iyo gobolka Mudug gabi ahaantiisba khatar baa ka iman karta in xoolaha iyo dadku wax ku gaaraan saas darteed dadka muslimiinta meel kasta ay joogaan iyo cid kasta oo arrimaha bini'aadanimada danaysa waxaan ugu baaqaynaa inta xaaladaas khatar gaarinin in loo soo gurmado haddii abaaruhu dheeraadaan ama oonku yimaado ama muslimiinta xitaa isna caam noqon hal meel ay noqoto salaada liyaa salaatul istisqaa iyo roodoonta oo qaybo fara badan ah haatanbana waa socdaa waxa weeyaan marka koobaad qofku inuu ilaahay la baryo duco joogta la sameeyo tan labaad waa salaadaha ciribtooda si khaasan la iskaga xasaariyo tan saddexaad waa dadku inay saddex bari soomaan maalinta afraad ay banaanka u baahan iyagoo masaakiinta iyo dadka tabarta yar ay ka mid yihiin roodoona la sameeyo intaba waa aan samayn doonaa haddii khatarta islaato sida ilaahay noo amrayo insha Allah taala ugu dambeyntii wasiirka ayaa ka codsaday dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ka soo jeeda deegaanada dawlad goboleedka Galmudug iyo dawladda federaalka Soomaaliya in la soo caawiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen kuwaasi oo ku sugan deegaano badan oo kamid ah deegaanada dawlad goboleedka Galmudug dhammaan dadka reer Galmudug iyo ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa ama dawladda ku sugnaadeen ama gudaha ku sugnaadeen in qof waliba wixii tabaruc uu geysan karo uu geysto sababtu waxay tahay qofku waxa weeye 2 milyan oo qof baan nahay haddii qofkiiba $1 bixiyo inta dhibaataysan way badbaadin kartaa inta dawladda jirta kaliya shardi ma aha bal iyo dawladda waxaan ugu baaqayaa inaan arrintaas ka qayb qaadano gacmaha isqabsan Bishaar Cabdulaahi Maxamed Somali Channel magaalada Cadaado xisbiga macaaridka wadanina waxa uu munaasabad ballaaran oo soo dhaweeyna ugu qabtay magaalada Boorama mas'uuliin hore xilal uga soo qabtay xukuumadda madaxweyne Siiraanyo sida uu faahfaahinta warkaasi nooga soo diray magaalada Boorame wariyahayaga Maxamed Xasan Ismaaciil Sharbiyare gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro iyo mas'uuliin ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani ayaa subaxnimadii saaka hotelka Rays ee magaalada Boorama kaga qayb galay munaasabadan kada dhicita si weyn isugu soo dibiriday isla markaasina ujeedadeedu ahayd siyaasiyiin miisaan culus ku leh gobolada galbeedka Soomaaliland isla markaasina xiriir kala duwan ka soo qabtay
laabtay xukuumadda uu hogaamiye madaxweyne Siraanyo ayaa si rasmi ah ugu soo biiray xisbiga mucaaradka ee wadani. munaasabadaasina ayaa waxaa ka soo qayb galay taageerayaasha tirada badan ee xisbiga wadani ee gobolka Awdal. ugu horeyn waxaa munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka Awdal Cabdikariin Muuse Maali iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ee degmada Boorama Maxamed Muumin Aadan Kacab ayaa waxay si weyn ay ugu soo dhaweeyeen siyaasiyiintani ku soo biiray xisbiga wadani. wasiirkii hore warshadaha ahaana wasiirkii hore dib u dejinta Soomaaliland Cabdirasaaq Cali Cismaan, barasaabka hore gobolka Awdal Axmed Xadi Sidci, barasaab ku-xigeenkii hore gobolkaasi Salel Cali Alaala Riyaale iyo siyaasi Mandela oo ka mid ahaa siyaasiyiintii ku soo biiray xisbiga mucaaradka ee wadani oo ayna munaasabadaasi ka hadlay ayaa wax hadladoodii ka mid ahaa. Cabdiraxmaan Cirran markii uu ka soo baxay golaha wakiilada ee gudoomiye laga dhigayaan ninkaas kursiga madaxweynaha ayuu socdaa. waxaana iibiyey maamulka xisbiga kulmiye ayaa iibiyey. waxaad ogtihiin maanta meel alla meeshii ahayd hanti qaran oo gaara loo iibiyey maanta la siiyey xubno ka mid ah bulshada oo gaar u isticmaala ama u adeegsada. duruufaha jira habashada iyada qareedada ka yeelaysa gobolada bari ilaa galbeed inuu dalku isbedel u baahan yahay. markaan isku qancannay inuu dalku isbedel u baahan yahay ayaanu aniga iyo asxaabteedu isla qaadanay halka ugu habboon ee wax laga sixi karaa inay tahay wadani. waxaan garanay ninka dadweynaha ee shacabka ka soo baxay laba reeroo wadatay xagga raashinka xisbiga kulmiye uu sameeyey laba reeroo wadategan oo meel wadatay ayaa reerna la siiyaa raashinka reerna waa laba reeroo runtii horta sidii walaalkaygii iga horreeyey sheegay cid annaka na soo shookaabtay bay jirin. dad runtii waxa weeye dalka iyo dadkaba la xijoobo ka qaba ayaan nahay. aad iyo waa gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ana gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo halkaasi ugu dambeyntii ka hadlay iyo waxa uu si weyn xisbiga ugu soo dhaweeyay siyaasiyiinta miisaanka culus ku leh gobolada galbeedka Soomaaliland ee ku soo biiray xisbigaasi wadani. marka hore waxaan jecelahay in anigu ka wakiilo dhammaan madaxda mas'uuliyiinta iyo taageerayaasha xisbiga wadani aan gacmo furan iyo qalbi furan ku soo dhaweeyo siyaasiyiinta miisaanka leh ee horteeda fadhiya ee hareerahayga jooga waxaanu leenahay ku soo dhowaada xisbiga wadani. xisbiga wadani laydinkama laha ciddii bilowday iyo ciddii idinka soo horreysay waa ula simanteeda. waxaana laydinku soo dhoweynaynaa gacmo furan iyo laabi furan. si kastaba arrintu ahaatee munaasabadda sida heerka sare loo soo agaasimay lagu soo dhaweynayay siyaasiyiinta ku soo biiray xisbiga wadani ee ka soo jeeda gobolada galbeedka Soomaaliland ayaa waxay ku soo dhamaatay jawi degan oo markaas ay ku dheehan tahay farxad iyo damaashaad. waa Maxamed Xasan Ismaaciil Bere, telefishinka caalamka ee Somali Channel, magaalada Boorama. guud ahaanba daawadayaal qodobkaasi ayaa u dambeeyay warkii caalamka oo aad kala socoteen xarunta Somali Channel ku leeyahay magaalada Hargeysa. aniga iyo asxaabta igala qayb qaadatayba waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.